ka waran haddii aan ku dhaho waqtiga aad joojiso inaad u baahan tahay dhiirigelin oo aad bilowdo inaad sugin ogolaasho si aad hore ugu socoto waa goorta kaliya ee aad bedeli karto sida aad u aragto nolosha oo dhan. Marmarka qaar qofka aad sugayso inuu jug ku siiyo si aad hore ugu dhaqaaqdo waa isla adiga. Sababtoo ah markii aan carruurta ahayn ma aanan u baahnayn dhiirigelin, waxaan ahayn kuwa xiiseeya wax walba. Waa dhaqaaqi jirnay, waa isku dayi jirnay, waa dhici jirnay, haddana isla markiiba waa istaagi jirnay mar kale. Dadka nagu hareeraysan way noo sacbin jireen, wayna dhiirigelin jireen, waxayna na siin jireen tamar iyo kalsooni. Laakiin meel dhexdaana markaan soo marayno waxbaa isbedelay. Waxaan bilownay inaan dhinacyada eegno, sugno ogolaasho, una baahno fasax si aan u dhaqaaqno. Tani waa xaqiiqda dadka badankood aysan ogeyn. Deegaankaagu wuxuu noqon karaa laba mid uun. Kow, inuu yahay mid ku horumariya kuna kobciya, ama labo, inuu yahay mid aan wax macno ah kugu soo korinin ama ku soo yareeya adiga. Sidaa darteed, haddii ay dhabkaa tahay inaad rabto inaad gasho nolol fiican, waa inaad ka taxadirtaa dadka kugu hareeraysan hadday yihiin saaxiibo ama famil. Sababtoo ah ma gaaraysid halka aad u socoto ee ah fiinta sare haddaysan ahayn kuwa u diyaarsan safarka aad geli rabto, ee waxaad iyaga la joogi doontaa halka ay joogaan abid. Sidaas darteed 100 jeer ka fiirso dadka aad isku hareeraynayso. Inta badan waxaan maqalnaa kula cawee gorgorka hawada sare, laakiin cidna kuma sheegin dhabta ah in gorgorku keligii uu hawada sare ku caweeyo. Taas macnaheedu waa horumarka marmarka qaar wuxuu ku dareensiiyaa kelinimo aad u weyn. Waxaad ka gudbi kartaa oo aad ka saramari doontaa dad badan, waxaad iska tuuri doontaa oo kaa foqi doona lakabyo badan oo horay aad u lahayd. Waxaad dareemi doontaa kala fogaansho adiga iyo noloshii hore ee aad u taqiinay. Laakiin taasi khasaaro ma aha saaxiib, waad iswaafajin adiga iyo halka aad hiigsanayso. Sababtoo ah marka aad sare u duusho oo aad ugu dambeyn gaarto xidigaha, waxaad bilaabaysaa inaad aragto wax dadka badankood aysan weli arkin. Waxaa jira gorgor kale oo halkaas sare ku caweynaya, mana aadan u dhalan mar walba in lagu hogaamiyo oo noloshaada oo dhan aad dad iska daba socota. Mar uun waa inaad aamintaa in dhawaaqa gudahaaga ka yeeraya uu sax yahay, kaas oo ah mid dalbanaya wax dheeraada. Qof walba wuxuu leeyahay laba fikir oo iska soo horjeeda, waana damaca iyo iimaanka. Midna wax dheeri ah ayuu dalbadaa, midna wuu xishoodaa oo ka celiya. Guusha waa isku dheelitirka labadaas. Ha wada xirin damacaaga, hana ku tiirsanaanin keligiis. Tani ayaana ah runta ay tahay inaad aqbasho.